بسم الله الرحمن الرحيم مناسبة maalinta macalinka Soomaaliyeed 21 November waxa aan halkan tahniyad kaliya laab ah uga diraya dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo heer kasta oo ay aqoonta wax ka baraanba macallinku waa udub dhaxaadka nolosha macallinku waa laf dhabarka bulshadeenu ay ku taagan tahay macallinku waa shumcad u iftiinta si dadka kale ay wax u bartaan oo dadka kale qiimo iyo sharaf ay u yeeshaan waxaan garawsanahay in macallinka Soomaaliyeed aanu helin maqaamkii iyo karaamadii iyo dhaqaalihii iyo ka warhayntii u baahnaa muddadii la soo dhaafay waxaan dareensanahay aniga oo waxbarashada ka soo shaqeeyay muddo dheer in duruufo adag ay ku soo shaqeeyeen macallimiinta haddana ay guteen waajibaad aad iyo aad u xoog weyn oo maanta bulshadeen inta ka dhaqaaqaysa inay tahay intii ay macallimiintaas ku dadaaleen iyagoo duruufta adag ku jiro ma jecli in xuska maalinta macallinka uu noqdo sidii dad dhintay oo la xusayo munaasabadeena xuska maalinta macallinka waxa ay noqon doontaa meel aynu ku muujino isbedel dhab ah oo lagu sameeyo xaaladda macallinkeena waxa inoo ballan ah maalinta macallinka Soomaaliyeed oo aanu idinkugu sheegi doono dowladda federaalka eena idinku soo gaarsiin doonto waxa ay doonayso inay ka bedesho xaaladda macallinka Soomaaliyeed tababarkiisa horumarintiisa shaqaaleyntiisa iyo ka warhayntiisa waxaan idin leeyahay mahadsanid macallin